بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي وعبد الرقيب شعب قادر محمد. waxaan fursadan qaaliga ah markii koobaad aan ka soo helay asxaab iyo waliba website oo markaas lagu abaalgareynay barnaamijkan runtii waan soo abaalgareeyay waan dadaalay falilah alxamdu waxaan helay short listiga aan ku soo baxay then waxaan ka mid noqday dadkii short listedka ah ee loo bilaabay BYB ga inay bilaabaan laba bilood then meeshan ku dhamay alxamdulillah haddana waxay u dhiirigeliyay maanta inaan imaado barnaamijkan presentationka waxay tahay runtii in aan dhiirigeliyo naftayda in aan himilooyinkayga ama riyooyinkayga aan rumeeyo insha Allah taala barnaamijkan watana waa Somali market oo ah business marketing oo barnaamijyo badan ay iskugu jiraan dabcan oo ah qof walba maanta business wato brandkiisa ama productkiisa in la sii xayisiyo ama dadka la baro ama si e-commerce xataa loogu sameeyo oo suuqa yani loo iibgeeyo si online ah qaab technology ah waxaan ka rajeynayaa barnaamijkan maanta aan ku guuleysto waa sidaan jeclahay insha Allah taala hadii aan waayna fillah alxamdu dadaalkaygana dabcan waxaan rajeynayaa hadii aan ku guuleysan waayo in aan sii wado oo meesha uga sii harin oo laga yaabo in fursado kala bangi kala isiyaan ama shaqadoon markale aan fursad kale ka helo oo markale aan soo abaalgalo insha Allah taala ku guuleysto soo dhawaad Abdiraqib maanta waxa weey maalintii presentationkii ugu dambeeyay fikirka ganacsiga badan ka soo shaqeynaysa aad jeedin lahayd oo ka hor jeedin lahayd guddiga maalgashiga guddiga maalgashiga haddaan iskiin baro Xasan Daahir xabeeb oo xagga shee fadhiya dhexda waxa ku jira Maxamed Maxamuud Roble iyo aniga Axmed Cali oo iyagu labadooduna kimis bay ka soo dhacaan ka shaqadoon waxaas 18 daqiiqad fikirka ganacsi ku soo gudbisid magacaaga saddexaad adigu ka bilaabi doona waxaad u gudbi doontaa presentationkaaga thank you bismillaahir rahmaanir rahiim marka koobaad waan idin salaamayaa waxaan salaamayaa dabcan qolada kimis oo financial institution ka ah iyo waxaan salaamayaa mahad gaar u soo celinayaa qoladii barnaamijkan dabcan intaas soo waday oo dadaal badan nagu soo bixisay shaqadoon organization runtii hambalyo anigana waxaan rajeynayaa insha Allah taala barnaamijkan soo jeedin doono inuu noqon doono insha Allah taala si aan ka rajeynayo mid miro dhala ama insha Allah taala ku guuleysto sidaad arkaysaan magacayga waa Cabdiraqib Shacab Qaadir Maxamed waxaan matalayaa ama xubin oo asaasayaasha aan ka mid ahay Somali market sida u jeedaan magacan dabcan magac oo weyn waaye oo xambaarsan hawlo badan laakiin anaga focuskeena dabcan waan sii sheegi doonaa sida u jeedaanna waa type-kiisana waa business marketing waaye in brand ama business productska in lagu sameeyo e-commerce iyo marketing isku jiro anagu adeegsanayno magazine iyo website labadaas ku shaqeynayna laakiin waxaan soo hosgelayo hawlo badan oo ah inaan shaqaalaha dhalinyarada ah inaan badino in aan sameeyno waxyaabo badan oo ku saabsan xagga suuqa oo hadhow ay ku cadaan doonto dhanka productiga insha Allah taala bismillah sida u jeedaan company-gan waa company dabcan ku shaqeynaya qaab technology system ah oo internet iyo magazine ah oo waliba magazine-ka weekly uu yahay waxa barnaamijkan sameeyay ama abuuray oo maskaxda lahaa laba qof oo stakeholders ama shareholders ah oo dabcan qofna maqan yahay qofna hortiin uu taagan yahay qof waa Dr. Xasan Albasri Sheekh oo managing director ka ah iyo aniga Cabdiraqib Shacab Qaadir Maxamed ah oo operation manager ah oo markaasi hawlihii ka socday xafiiska dabcan waday waxa arki doontaan oo idin muuqdo in aan aasaasnay August 2013 oo aan ilaa 3 sano soo wadnay hawshan runtii caqabado badan aan la soo kulanay oo xagga financial ah problems ay jireen oo aan u baahanay in loo maalgeliyo sida inaan u baahanay mashiinadii lagu daabici lahaa majalladaha inaan u baahanay equipmentskii kale ee xafiiska lagu shaqeyn lahaa sida dareemaysaana dabcan aysan jirin meel kale oo aan fan ka helin aan ka helnay inkastoo ay jiraan lacagta hadda aan u baahannahay markii la isku daro ay ka badan tahay laakiin 22,000 iyo xogaa dhowr boqol aan u baahannahay annagana aan haysano ilaa 10,000 ku dhow markii la isku darana aan u baahannahay markaas mashiino iyo operational waxaba operationalka ah oo hadhow aan xafiiskan ku sameeysan doono waxaba objectiveska oo aan ahdaafta aan u sameeynay company-gana waxa waaye participation in economic development Soomaaliya macnaha inaan ka qayb qaadano yani horumarka ganacsiga dhaqaalaha ee Soomaaliya sidoo kale inaan horumarino ama aan la shaqeyno business markets suuqyada ama
suuqyada maxaan ku dhahay Soomaalida sidoo kalena inaan community-ga garab istaagno haddii aan dabooli karno dhankeena oo aan ka geysan karno dhanka business-ka ah long term-ka aan ka leenahay business-kana waxa waaye in laga maarmo ama baahideeda yaraan doonto insha Allah in qofka inuu energy soo bixiyo uu imaado market-ka danna uu wax iibsado taas bedelkeeda ay noqoto qofka inuu order soo sameeyo asoo gurigiisa joogo ama xafiiskiisa ama goobtiisa shaqo joogo inuu wax soo dalbado any kind of product uu si online u iibsado e-commerce marayso sidoo kalena in aan ku sameeyno qof walba markaasi sida entrepreneurs-ka hadda maxaan ku dhahay systemada hadda wado oo dadkii badan iga horeeyay qof walba maskax iga wata waxa laga yaabaa qof walba company inuu wato company-ga uu watana in aan ugu sameyn karno productigiisa inaan u xayeysiin karno ama aan u suuq geyn karno qof walba adduunka joogan aan tusi karno si fudud advisories aan leenahay dabcan oo naga kaalmeeyo laba dhinac oo ah dhanka legalka ah ama dhanka financialka ah oo Cabdullaahi Katib oo kale oo dhanka legal advisor ah iyo Anwar Ahmed oo sidoo kale legal advisor ah labadaas dambe oo ah dhanka economic ah oo laga weydiinayo labada hawl ee maxaan ku dhahay oo aan soo sheegay productigeena dabcan oo anaga aan sameynayno waa service waaye waxaan u sameynaynaa business ka u sameynaynaa product anaga iibinayna ma jirto laakiin waxaan sameynaynaa marketing qaabkan u iibinayno waa qaab markaasi magazine iyo website wax soo galayna waa e-commerce oo kale hadhow aan u sameyn doono qofka productigiisa aan ugu iibin doono sidoo kale waxyaabaha oo service-ka anaga nagu jiro waxay tahay inaan new products-ka aan ku sameyno marketing mana acquisition soo galayso lacagaha sarifka qalaad suuqa sicir hadduu jiro kale iyo waxyaabaha productiga ama maxaan ku dhahay badeecooyinka meesha kala marayaan waxyaabahaas oo ayaa ku jiro waxaa ku jira marka service-kii waxaa ka mid ah marka sida ujeedaanba business marketing ka mid ah e-commerce ka mid ah inaan research ka sameyno xataa oo dhanka business-ka ah sidoo kale inaan sameynay marka oo waliba aan nuqlo badan aan ka soo saarnay Somali Market Magazine oo waliba weekly aan soo saareynay laakiin caqabado badan oo qabsatay oo ay ka mid tahay inaan u direynay Nairobi oo kale marka ugu dhowdahay si aan ugu helno haddii inta ka daabacno lacagta ugu badan saas oo kale waxay keentay marka in anaga lacagtii oo aan ku direyn in lacag badan nagu noqoto saas darteed haddii aan fan helno machine aan codsan doono kale waxyaabaha aan codsanayna ay ku jirto oo machine-kaas aan ku daabacno si ay u yaraato expense-gina galaayo waxaa ka mid ah marka qaab oo ah market connection in aan isku xiro suuqyada sidoo kale qaab online ah inay jiraan oo business kale isku imaado dabcan ayadana sidoo kale strategic plan oo ganacsiga aan u sameeyno iyo shaqooyinka markaas magaalada ka jiro kale inaan si online u soo bandhigno waxaan marka aan sameynay starting badan ama daraasooyin badan aan suuqa ku sameynay waqti badan naga qaatay oo ku soo baarayno baahida loo qabo system-kan waxaan ogaanay product walba ama any kind of business type inuu u baahan yahay marketing loo sameeyo oo si fudud waliba loogu sameeyo qof walbana uu soo dhaweeyay dabcan qiimaynta aan sameynay oo questionnaire-kii badan wax tig la soo siiyay waxay tahay inuu qof walba u baahan yahay business-kan uu yahay business dhaxalgal ah sidoo kale dadka nala tartamayna dabcan oo system-kan ku shaqeeyo waxay u badan yihiin idaacado iyo TV-yo shirkad oo sameysmatay qaabkan u shaqeynayso dabcan waxaan u maleynayaa shirkadda ugu horreysay inay tahay oo qaabkan u shaqeyso inkastoo laga yaabo inay jiri karaan shirkadda gadaal ka soo baxay wax walba boqolkiiba boqol ma wanaagsanaan marka aniga waxaan ku sameynay barnaamijkeena SWOT analysis wax lahaay waxyaabaha aan ku xooganahay waa in service-ka loo baahan yahay sidoo kale in anaga aan haysano qualified employees oo shaqaale tababaran waxaa weakness iska jiro oo ah in waliba service-kan still dad fahansaneen ay jiraan oo ay ku leeyihiin waxa waaye dadka wax ayay dhageystaan wax ma akhriyaan oo kale qaab noocaas inay dhici karto laakiin ay yar tahay oo dadkii u sii guurayaan qaab technology oo qof walba soo gurigiisa joogo oo xogta la socon karo fursadaha aan haysan waxa kamid ah inuu service-ku ugu horeeyo yahay hadda sidoo kalena uu yahay waxa loo baahan yahay ama gaab uu jiro dabcan anaga aan buuxinay caqabadaha waxa kamid ah security inay jiraan oo kale in dadkii ay wali aaminsan yihiin akhrintii laakiin markaan ku sameeyay qiimeyn laakiin inta yar ay aaminsan yihiin oo taasna keeni karto wali inuu barnaamijkaas soo kabsado waxaa ka mid ah marka sidoo kale qaab technology system-ki wali inuu magaalada soo gaarin oo ku dhahayaan qaab noocee marka adna waxay siinaysaa wali fahan u sii baahan tahay inkastoo laakiin qof marka u sharaxdo uu dabcan soo dhaweynayo adduunkana horumarkaas uu gaaray qaybta marketing-ka ama sales strategy-ga dabcan anaga marketing markaas meeno laba shay mid waaye ima in anaga anaga waxaan dadka barayno ama in qofka sidii loogu adeegayo dabcan loo sheegayo laba mid anaga markaan xaysiin sameynayno waa marina broadcasting ama TV-da oo marina si aan barnaamijkeena dadka u barno anagoo adeegsanayna marka waraaqado iyo stiikaro iyo pamphletyo iyo boorar ay ku qoran yihiin meelaha aan geeno meelaha suuqyada ah
si naloo barto bulshada annaga waxa u qabanna waxay tahay qofka inuu si exactly u soo booqdo si toos u soo booqdo Somali market.net ama Somali market.so asagoo ka tixraaca marka instruction-kii si online qofka xataa u soo abalaagare karo productigiisa iyo sawiradii iyo xataa video hadduu jiro xataa qofka uu soo gelin karo laga qaadayo dan approval loo sameeyo loo gelinayo service-kan u bilaabanayo marka waxyaabaha lacagaha laga qaadanayo service way dabcan aniga inta kuma xusin mana ku soo qorin waxyaabaha lacagaha markaasi annaga aan qofka service ugu sameynayno kiin lacaga macquul ah qofku san ka ordeyno kale aan ku bilownay oo markaas maxaan ku dhahay macquul ah company-na profit u noqonayo wayna kala duwan yihiin magazine raba hadduu dhaho qofka waa gaar hadduu dhaho waxaan rabaa labada waa isku rabaana waa service gaar ah shaqaalaha anaga adeegsanay dabcan shaqaalaha ugu yar waa shaqaale oo ah markaasi title haayo background-kiisa uu yahay bachelor degree oo kale oo ugu yar master holders joogo dad PhD ka shaqeeya sida Dr. Xasan oo kale oo PhD ah shaqaalaha hadda oo maxaan ku dhahay tooska waa 15 staff waay oo hadda joogo oo ay ka mid yihiin markaas boardska ka mid yihiin management operation chart-kana waa kana organization chart aan dhaho qaabkaas ayay isku hoos tagaan oo managing director iyo operation manager ka mid ah financial plan-ka oo ah financial plan-keenana waxaan ku soo bandhignay waxay tahay waxyaabaha marka fixed material-ka anaga u baahannahay totalka waa 22,460 waxa u baahan waa waxa ugu horeeyo waa printer machine waay oo markaas magazine-ka aragna ku daawacaan inta kale waa online oo system anaga aan sameyn karno waay oo u baahan waxa kale bisha soo socota bilaha soo socdo waxyaabaha anaga aan budget-ka aan sameeyno wakaas waa $8,750 oo markaas anaga aan haysano waay hoos ku caddahay waxa kamid ah marka waa web development salary iyo rent-ki iyo electronic fee iyo legal-ki iyo license waxabaas ay repair maintenance-gi waay waqti ay sidaan dareemaya marka lacagta sida loo celinayana waa anoo mahad celin u sameeyay kimis haday noo ogolaato waa aan ku guuleysano sanadka ugu horeeyay qaabka markaan soo qiimeynay sales-kana ama profit-kana waxaan ku ogaanay bil walba waxa aan qaban karno iyo waxaan dhiibi karno bisha ugu horeeyay tusaale ahaan $800 markaan dhiibno markaan aan qabanno waxaan dhiibi karnaa $500 waayo waxaan soo sheegay waxaaba operation anaga inaan haysano lacag qaar oo anaga aan ka fargaran doono laakiin waxa u baahanaa inay yihiin waxaaba equipment-ki material-ki iyo machine-ki oo kale $500 bisha warda bixino ta kale $500 aan bixino $500 bisha dhaxdan soo gashay $600 aan bixino ee saa u socdaan December oo sanadkaana $2,200 aan qiimeynay inay soo gali karto dan aan bixin karno $800 marka anaga waxaan ku base garin waxa waa 2 sano in lacagta ku celino January ilaa December na qaabkaas u caddahay 4,500 ugu dambayso sanadka dambe December aan heli karno ama aan qaban karno oo lacagta ugu dambaysa noqon karto $2,600 iyo $260 oo ugu dambayso oo lacagta markaas aan ku celin karno lacagta cawsan marka waxay noqotay $22,240 thank you for watching and listening thank you very much marka magaca laga soo bilaabo shirkad saas qofku markuu u fiiriyo macnaha Somali market macnaha waa magac weyn Soomaa marka generally kuma caada magaciin exactly waxa aad qabataan idinka waxay u baahanay marka again inaad qofka sharaxaad u sameeysaa in sidaad waxa ficlaan lahayd inaad magaca ka dhigtaan wax markii laga fahmayo exactly waxa idinka aad qabataan oo qofka macnaha Soomaaliga ama Soomaaliga yaqaan ama English yaqaan inka soo dhixin English ka noqdeen laakiin markii la fiiriyo aad uma muuqato markiiba exactly waxa qabataan taas waa mid kulli waxay idin tahay idinka yaqaanana kulli aad ma garna midda kale tood marka su'aashaas tii qusayso ma guud ahaan waa wixii soo jeedin يعني أنا هذا برنامج كان بريستيشن واي لكن أنا بورك استعمالنا إيه سيستم كاستعمالنا وحنا وقرن بيزنس ماركتين هوس كسر عسن و لوجا دي أما بانر وحنا نص مثلا أو بيزنس ماركتين ها بيزنس ماركتين واللي بحتى بيزنس ماركتين يو بيزنس ديفلوبمنت أريد استعمالنا يو بيزنس كونكشن يو لكن هذا بريستيشن كان لوجا دي بس نسوق قاعدة واقعت يعني برنامج كان سيدك موقته هذا هو من استعماله هذه الاستعمال التكنولوجيا فرها بدنا معنا على من استعماله قاب تراديشنال بدنا على صنع جورنالنا وصوص على سعيد اوكي وجعلنا لنا لكن ما سوق لا لكن هذا اولموست سوق كجرا نفتي ودين قصص معنا داج ديفلوبمنت ما هذا ما فيعل معنا لكن ويجي لنا صوما ما حاجه قد انت بواص waxa keenaysan kaga duunaan karaan asleeda ganacsiga aad rabtaa inaad keentaan suuqa maadaama idaacadaha jiraan advertisement sameeyaan oo mataqaana Cabdul Nuurdin iyo group iyo waxa jira Soomaa oo jiraan dawlad kulmiye iyo bilaad idaacadaha jiraan laga sameeyo waxaas waa mid kale toodne warqadihii paperska macnaha journalada caadiga ah waa la soo saaraa
إذا شركتين محاكا قدونتين كواس وقار أهان الله ذا يونيك وحن كقدونا وحاس anaga waxaan kaga duwanahay horta jooraanka soo saarayna wuxuu ahaa mid color ah marka wuxuu kaga duwan yahay jooraanka wuxuu iskugu jiraa meelo xayeysiin oo product qofka company hebel inuu sameeyo products uu keenay oo kale qayb waxa waaye articles oo businesska qayb waxa waaye suuqa iyo meesha ay kala marayso badeecadihii iyo lacagihii sarifkooda marka waxaan kaga duwanaa waxa waaye waxa laga yaabaa joornaalada caadiga la soo saaro inay qaar badana news u badan yihiin wax maanta toos ma jiro oo xayeysiin toos intuu sameeyo ama qaab noocaas intuu service u sameeyo bulshada ugu qabto anaga marka waxaan isku darsanay barnaamijkan oo ah gaab oo la buuxin karo iyo dadkii service loo sameeyay waxa markaasi lacagta laga qaadayo muqaabilka inay aad u yar tahay laakiin fursad ay jirto oo unlimited u yahay magaziinka oo hadii mar walba ay bataan dalabkii magaziinka la sii badin karo marka dadkan hadda majaladaha soo saaro wuxuu badan yihiin waa newski waaye hadii ay ku soo daraan dabcan waxaan ku kala doonahay color nagu yahay keena service-kana uu ka yar yahay qofka laga qaadayo markaan qiimeynay waxaan aragnay kuwa yar oo soo saaraan marmarka qaar lacag laga ma qaado marna lacag waxay ka qaadaan yar ah oo marka system badan kala duwan qaabka adeegsanayna way kala duwan yihiin waxa ku saar idaacadaha iyo TV-da kale asi waxay u jeediyaan oo maqal ama muuqaal oo kale lacagtooda markaad fiiriso kale bishii wax laga yaabaa idaacadaha ama $100 ka qaadan laakiin anaga wixiina waa online waxna waa magazine marka lacag yar waayo lacagta ugu badan laga yaabaa inay talaata waan gartay aad ma santahay in hadii ganacsiga ka soo qaat waxa waa ganacsi moogta ganacsiga markasta macnaha markasta ma hirgalo marka qaar waxa dhici karta in caqabado ka hor yimaadaan hadii ganacsigan uu shaqeyn waayo lacal kimsan lacag idin geliso maxaa alternative oo lacagaas ku bixinaysaa in kees ganacsiga waa socon waay qarashada kimsan geliso macnaha maalgelin la idin sameeyay then kadib lacaga ganacsiga uu socon waay lacagilada ku lahaa sidee isleedin u bixin kartaan oo macnaha weygaas ka duwan oo ama ganacsi kale ma gelinaysan sidee wax seertaan u bixsan lacagtaas in case di problem dhaco oo qorshe ku jirta idin laftigeeda imaan kartaa ilaahay naga ilaaliyo laakiin wax imaan kara waa macquul gal ah oo ah inaad riskigaas qaadato lacagta marka lacagtaas markii anaga intaan ku celin horta waa 2 sano hadii marka ay dhacdo in systemkan ama noo shaqeyn waayo ama naga fail garow lacagtaasna laga rabo dadka boardka ah ma aha dad oo bas company ku tirsan waa dad meel kale iyo sources kale ku xiran waxaan aan si analyze gareynay dhowr qof oo naga mid ah inay yihiin dad oo professional ah oo mashaariic kale maamusho saas darteedana ay awood u leeyihiin lacagta maadaama ay ahayn lacag hal mar la shubayo bil walba waxaan ugu soo aadi karaa aan dhiibi karna marka okay su'aashan ku weydiinaya waxay tahay Cabdirakiib business waxa tiri wuxuu jiray ilaa 2013 Soomaaliya okay inta uu shaqeynay business wax income statement miyaad haystaa sanadii la soo dhaafay iyo profit ku sameeyay suu shaqeynay income statement waan sameynay oo hadda ma wada laakiin explanation waan ka sameyn karaa salahan wax hadda aan darbi kugu qaban karo ma jiraan laakiin waan ku proof aan ku sameyn karaa income statement waa khasab laakiin problemkan haysta wuxuu yahay waxa soo daahayo majalada markii la diro yaa waxa qaadanaysaa ayada hal bil qaadanayso markii la diro systemka markii la asgareeyo oo la design gareeyo la diro majaladii waxa qaadanaysaa markaasna waxa xoog badnaa oo service-kiisa u badnaa majalada waxay qaadanaysaa 1 month ama wax u dhow 25 maalmood 20 maalmood qaadanaysaa waxba ugu kalifa in machine aan keensano waay marka mar walba income statement-ga wuxuu isku bedelayaa hadii aad qarashkaas gasho oo hadana wixii ka soo daahan hadana service kale adoo haysto qofkii ku dhahay waxaan u baahanahay marka service-ka dalbada way kadib inaan majaladii helo ayaa caqabadaha keenay oo machine-ka u dalbanay noqonaysaa laakiin hadda daan wadi lahayn in case oo aan Nairobi u diri lahayn oo aan diri lahayn mar walba waqtigaas anaga dhuminaan diidanahay income statement-na dab waa hayna wayno record garaysan yihiin business plan-kii kuma jiro dabcan hadda inta aniga cadeynayo kale marka waxa tusaalahan waxa soo codsatay lacag 22 kuna marka 22 maadaama soo codsatay waa in la arko income statement-kaaga business-ka maadaama existing yahay wax jiray waa in la ogaado muxuu lacag sameeyaa bish sanadkii muxuu sameeyay la soo dhaafay sanadka analysis halkaas laga sameeyaa analysis noocaas oo kala
marka wax la arki karaa in lacag businesskan in la sii ballaarin karo dad suuq leeyahay aan suuq lahayn laakiin imka statements iyo wixii sanadihii saddex muddooyinkii labada sano saddex sano shaqeynaya wali waxba kama hayno anyway hadda sanadka ugu horeeyo kale oo hadda sanadkan aan ku jirno kale biya maamulaya meesha biya maamulaya maamulka oo xagga oo maamul waxa iska manager director-kii qofka operation biography-giisa halkan kuma qorna muxuu background-kiisa waa maxay waxaan background-kiisa waa muxuu bartay isagu muxuu yaqaanaa muxuu experience leeyahay qofka maamulaya okay dabcan qofka maamulaya waa double badge iyo waxa waa PhD badge-kiisa waa BA oo kale business administration laakiin PhD-ga soo kale waa history oo kale anoo kale waa IT oo kale nahay dabcan marka dadka shaqeynaya ee ku qoran dhanka finance oo kale dadkaas ah BA oo kale laakiin isku xirkii iyo hawlihii iyo farsamadii xataa oo barnaamijkan design badan u baahan yahay saad dareemaysid design badan oo xog inta la soo arin design gareeyo dan barnaamijka la soo bandhigo dadka marka ka shaqeeya saa soo sheegay waa dad oo qalbaad ah qof walba wuxuu soo bartay ku shaqeynaya website-kun active ma shaqeeya active waaye u shaqeeya waa u shaqeeya www.somalimarket.so oo kale .net.com same waa .net iyo .so way kaliya labada waad geli kartaa isku page bay kugu xidhayaan ku jiro video live ku jiro qofka xataa uu hadlaayo kale barnaamij la soo duubay oo hoteelo laga soo duubay marka barnaamijka meel buu taabanaya kaliya ma xataa businesska oo general businesska ama tradingka ma kaliya meel walba service xataa community service ku jira hoteelada isbitaalada waxbarashada Somali market aan fahano Somali market waxa ka shaqeynaysaa waa marketing mise waxa weeyaan online shopping online e-commerce waa ku jira marketing ku jiro waliba e-commerce-ga waxaan rabnaa markii hadda dabcan e-commerce wali intaan baraan inta gelin way jiraan company aan si aan gaar inta ugu xayeysiinay oo aan u xayeysiino oo productiga saas loo arkay si gaar ah laakiin baraan oo waliba ku qoran yahay waa systemka hadda aan wadno lacagtina ku qoran yahay qofku inta order gareysto hal mar oo meesh loo geenayo kale tan aan hadda aan rabno waa inaan gaarno muqdisho maana Soomaaliya inaan rabnaa salahan company hebel oo gado kabaha waliba adurub si gaar ah u soo dogo adurub si guud ah u soo dogo in loo gelin karo kabihii type-kooda nooca daftarka inta la geliyo lacagta loo kor qoro qofka hadduu order gareysto lacagtiina si automatic u shubo machine-kan delivery anaga sameeyno ku khasbannahay baabuurtii inaan sameeyno laakiin yoolka aan hadda gaarina e-commerce-ga si toos hadda anaga uma waxayno baabuur aad ku soo leedahay ama wax kale oo la isticmaalo shay maxaa delivery ku sameeyna qofka lacag la qaatay baabuur waxaa jiro qofku joogaa macnaheedu waa ka gad hadda baabuur waxaa jiro oo dictorka oo kale jaamacadu madax ka yahay baabuur waxaa jiro ku shaqeyn jiray oo alaabaha oo isbitaalada iyo kale iyo waxyaabahaas ku sameyn jiray oo annaga saasna loogu soo deeqaa jiro hadda oo xareysan oo marka qaar waxaan lagu qaado oo firaaqa ah jiro oo kuraasta laga bixiyay waxaan ugu talagalnay marka haddii in case ay jiraan alaabo markaasi oo birka mar la soo gadaayo oo kale lagu soo qaado marka barnaamijka si baradagna waa hal gaar oo kale hadda waan helaynaa barnaamijka gudaha Soomaaliya oo dhanacsan e-commerce Soomaaliya waxaan ku magaalada طبعا سوق تقدر سوق بكار لا سو حابسده بالله توفيق خوش اسكير فوضى idinkan waxa rabtaan electronic commerce iyo hawlo waxa ka hadlaysan internet ila xiriirtay in faanto hawlo weyn su'aal sax waaye hadda markaad qiimayso suuqa aad tagto oo aad company walba u tagto maanta barnaamijkiisa in oo si degdeg ah loogu gado uu jecel yahay qofka marka hadda laba shay isku darto oo dhahdo waxan waa lacag yar laga qaadaya service-kan oo lagu sameeynaa asaga xataa ma diidayo inkastoo ay jiraan waxba la soo qaado waxba guud oo company walba iska keensada haddana alaabe gaar waxaa jira dadka ay keensadaan oo kale marka dhaadhicin badan horta waan soo qaadan annaga adigu ay tibaad Soomaaliya website-ka wada maamula wax kaliya waad arki kartaa kulli visitors-ka website-kaaga imsa visit gareeya bishii ama maalintii hadda maalinkii waxa soo booqato 1 iyo dhowr gaaraan waxaan ka soo bilownay anagoo maalinkii 10 qof oo kale 20 qof soo galaysan ka soo bilownay soo socotay hadda markay ugu badan tahay oo kale oo aan soo attach garan ama soo share garana barnaamij oo article aan Facebook iyo Twitter baan sameynay aan ku soo xirno 2,300 kun laga yaabo qof inay saas ku soo gasho oo ay saas u fiirsato thank you very much hadad guulaysid waan kula soo xidhay
maanta ma sha Allah haddaan ka soo baxay presentationkii dareenkayga dabcan markii hore oo aan galayay ama intaan gelin ka hor iyo haddaan ka soo baxay laba kaliyihiin haddaan kaga sii kalsoonahay oo isdhahay fikrado badan oo dan soo bandhigin ama jiri doontaa oo soo bandhig runtii oo jirto marka dareenkaygu wuu kacsan yahay ma sha Allah waxaan rajeynayaa guul insha Allah taala maanta guddiga qiimeynta waxaan ka rajeynayaa insha Allah taala haddii ilaahay noo qadaro in aan guul ka gaaro ay fursadaas siiyaan ilaahay amarkiis waa laga yaabaa dabcan inay winners kala jiraan laakiin runtii dadaal badan aan bixiyay aniga waana rajeynayaa inaan guuleysto marka waxaan ka rajeynayaa guul inay siiyaan fursadaas runtii shaqadoon waxaan rabaa kulli koo jeerna oo mahad celiyo si gaar ah inaan u xuso macalinkayga Sheekh Cabdirasaaq Muuse oo barnaamijkan BYB-gana si build your business oo maanta fikradaha xataa qaarkood aan meesha ka soo jeeday xataa meesha aan ka qaatay ma sha Allah in badan oo baleenaya barnaamij oo aad muhiim ahna bulshada u haysa runtii oo waqti badan u baahan in la daboolo runtii hambalyan leeyahay waana guuleystay 2 bil aan barnaamijkaas aan ku jiray marka thank you very much hada ma santiin